بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. mudanayaal dhegaystayaal waxaan halkan ku soo gudbinayaa talooyin lagu badbaadinayo Puntland. Talooyinkaas oo aanan keligay ku ahayn ee ay la qabaan indheergarad badan iyo aqoon-yahan badan oo reer Puntland ah. ka samata bixinta Puntland xaaladda siyaasadeed ee cakiran 2023. Golaha indheergaradka iyo aqoon-yahanka Puntland iyaga oo ka dhiilaysan daruuraha colaadeed oo dul hoganaya Puntland oo ku aadan doorashada Puntland ee 2023 waxay soo gudbinayaan talooyin ay ugu talagaleen in lagu samanta bixiyo dhibaatada taagan Puntland laga samanta bixiyo. Waxaa muuqda in caqabadihii iyo is-afgaranwaagii ka aloosnaa Puntland ay weli taagan yihiin iyadoo 3 bilood ay ka harsan tahay muddadii doorashada Puntland. In shacabka lagu eegto dhibka taagan waa waxaan loo dulqaadan karin lagana aamusi karin. Indheergaradka iyo aqoon-yahanka Puntland waxay boorinayaan dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee ka bilowday Puntland oo lagu raadinayo xal u helidda siyaasadda cakiran. Indheergaradkaasi waxay ka digayaan daahniinka lagala dibdhacay gobol xaarkii hirgelinta doorashada qof iyo cod ah oo baarlamaanka iyo madaxweynaha Puntland ay ku baaqeen ka samaaganayaan hirgelinteeda. Waxaa soo xoogaysanaysa doodii ay mucaaradku la taagnaayeen oo oranaysay doorashada qof iyo cod ka dhab maaha xukuumadda Puntland ee madaxweyne Deni waa shaati siyaasadeed oo jinkiisa ah ku tolanaya iyadoo ay 90 cisho ka harsan tahay 8 Janaayo oo doorashadu dhici lahayd. Haddii ay taasi dhab noqoto waa taariikh xun oo dowladda Puntland iyo baarlamaanku uga tegayaan cawaaqib xumada ay taariikhdaas diiwaan gelin doonto. Waxyaalaha tuhunkaas abuuraya waxaa ka mid ah 1. in weli laysku haysto komishinkii PEC xubnayntiisii oo aan salka loo dhigin taabagelintiisa, shaki ay kala qabaan ururada siyaasadeed iyo xisbiyadu. 2. in xirfadaha PEC aan loo meeldayin oo lagu dhisayo yaa codka ku boobi doona. 3. in aqoon-yahankii iyo indheergaradkii ay noqdeen kuwo ama caadifad qabiil ka indhasaabayso badbaadada samanta bixinta wadajirka Puntland ama ay ka niyad jabeen siyaasadda Puntland oo dhan. 4. in isimadii ay Puntland ku faani jirtay intoodii badani xaqa iska indhatirayaan oo ku milmeen kooxaha ku hardamaya siyaasadda cakiran ee Puntland ka jirta. talooyinka ku aadan samata bixinta Puntland iyada oo aqoon-yahanka iyo indheergaradka Puntland ka dhiilaysan yihiin jahwareerka Puntland ka taagan waxay halkan ku soo gudbinayaan talooyin looga gudbi lahaa arrimahaas cakiran. Cutubka 1 ammaan sugidda. In magaalooyinka Puntland lagu yuto sidii loo abuuri lahaa jawi ammaan sugineed oo doorashadu ku dhici karto shacabkuna ku kala badbaadi karaan. 2. in Puntland laga mooso xoogaga shareed oo isku dayaya inay qori xukunka ku marursadaan. Cabtoyda maandooriska soo gelisa Puntland iyo kuwa ka soo firxanaya dagaalka lagula jiro xarakada Al-Shabaab ee gobollada dhexe. 3. in la hirgeliyo sidii shareecadu qabto in qofkii xaqdarro ku dila qof kale loo qisaaso iyadoo aan lala jiitamin. 4. in isimada Puntland
shir loo qabto oo laga ansixiyo laba qodob. Qodobka koowaad, dhulka Puntland dowladda ayaa ka wakiila, qof aan loo sharciyeyna ma sheegan karo, maadaama isku dhaca beelaha Puntland uu ka bilowdo isku qabsiga dhuleed, taasoo sababta xasilooni darro joogta. Qodobka labaad, in shareecada islaamka wixii ka khuseeya qisaasta la hirgeliyo oo ay xal iska saaraan hirgelintiisa. 5, in culimaadudiinku wacyigelin ka siiyaan bulshada cuquubada if iyo aakhiraba ka timaada dilalka ka dhacaya Soomaaliya oo dhan. Cutubka 2, samaynta maxkamad dastuuriga. 1, in maxkamadda dastuuriga la firfircooneeyo oo loo xulo dad tayo, waafinimo iyo aqoon garsooreed leh. Ka maagashada inay qaado dacwado loo gudbiyo ama ay daahiso waxay qayb ka noqonaysaa burburinta Puntland. 2, in guddi 5 xubnooda oo lagu ogyahay daacadnimo oo cod isla eg leh oo kiisaska maxkamadda la keeno go'aamiya. 3, inay samaystaan xeer hoosaad iyaga laftigooda kala haga. Cutubka 3, doorashada 2023 ee Puntland. Iyada oo aan waqti ku filan loo hayn doorashadii qof iyo codka ahayd, 90 cisho oo keliyana ay ka harsan tahay, kama fursan doonto 1, in dowladda loogu daro 1 sano oo ay ku dhammaystirto doorashooyinka, tirakoobka iyo cilad bixinta doorashooyinkii degaameed oo horay u dhacay. Taasi ma aha mid aan ugu garab gorayaynayno madaxweyne Deni, ee waxaan uga hortegaynaa inuu dhaco faraaq ay sharwadayaashu ka faa'iidaysan karaan oo qiil ku samaysan karaan. Muddo kordhintaasi waa inay ka timaadaa guddi doorasho oo la isku raacsan yahay, ee ayan ka imanin dowladda iyo baarlamaanka Puntland. 2, inay dowladdu la timaado goorayn ama timeline iyo qorshe sida ay 1 sano ay ugu hirgelinayso muddadaas loo kordhiyey. 3, in dastuurka la furo oo lagu daro inaan asxaabta iyo ururada siyaasadeed oo keliya xilalka ugu sarreeya u tartamin, ee lagu daro tartamayaal madax bannaan, taasoo ay dooran karaan xubnihii ku soo baxay doorashada degmooyinka. 4, inaan marna lagu noqon nidaamkii faashilka ahaa oo 66 gole baarlamaana oo odayaal dhaqameed aan iyaguba is-indha buuxin ay soo xuleen. 5, in la kala xilduwo golayaasha dowladda si looga baaqsado musuq iyo eex, oo ayan golaha baarlamaanka iyo golaha wasiiradu ayan isku milmin. Cutubka 4, guddiga doorashada ee PEC. Si looga gudbo caqabadahaas, waxaa loo baahan yahay in la magacaabo guddi doorasho oo ka madax bannaan ururada iyo axsaabta jirta. Guddigaas oo ay soo xulayaan culimaadudiin aan lagu naynaasi karin in jeclaysi, eex iyo wax isdabamarin. Culimaadudiinkaas oo ay ka mid noqon karaan Sheikh Maxamuud oo ah horjoogaha jaamacadda East Africa ee Garowe, Sheikh Fuaad iyo Sheikh Maxamed Qorane, iyo 2 xubnood oo kale oo la xulo oo la isku raaco oo loo dooro inay magacaabaan guddigaas doorashada ee PEC. Cutubka 5, guusha SSC Khaatumo iyo garabgalkeeda. 1, waa inaan marna laga hor imaan iraadada shacabka SSC oo xorriyad loo siiyaa haddii ay gaar isu taagayaan oo state kale ama wilaayo kale ay noqonayaan,
iyo haddii Puntland ay ka sii mid ahaanayaan. 2. in inta ay go'aankooda gaarayaan loo sii wado wixii taageero ahaa oo Puntland uga imaan jirtay, iyagoo dowladdooda iyo garaadada SSC looga dambaynayo. dhammaad. وبالله توفيق.